maxkamaddu way noo furan tahay dhibana xeeraarinta gobolka Faafan eedeysanaha koowaad Faadumo Saleebaan Cali eedeysanaha labaad Mooge Warsame Cabdi galkan wuxuu u mudaysnaa maanta taariikhdu 15 bishii 10aad 2009 in ay maxkamaddu ka soo saarto go'aan kadib markii ay soo baadhay waxay maxkamaddu ka soo saartay go'aankan galkan waa gal dacwadeed ciqaaba oo dhageysiga heerka koobaad ah wuxuuna maxkamadda sare ee gobolka Faafan ka furmay 5tii bishii 7aad 2009 waxaana labada eedeysane lagu soo eedeeyay in ay galeen fal dambiyeed dhanka ah korinta caruurta haddaba kadib markii ay maxkamaddu baadhis ku samaysay cadeymaha galka ku jira lana eegtay sharciyada khuseeya waxay ka soo saartay gobolka Faafan ee ku taariikhaysan 1dii bishii 7aad 2009 sumadeeduna ay tahay GBO 315 eber 9 labadan eedeysane waxaa lagu soo eedeeyay in ay ku xadgudbeen qodobka sharci 659 xeerka dambeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee soo baxay 2005 eedeysanada koowaad oo ah hooyada guriga uu ku nool yahay wiilka yar ee la yiraahdo Cabdifataax Mooge daadiisuna ay tahay 10 jir waxa ay u geysatay xadgudubyo fara badan oo ay ka mid yihiin jirdil dhaawac maskaxeed ka mamnuucid waxbarasho iyo ku adoonsi shaqo una kareynin eedeysanaha labaad oo ah aabbaha wiilka yar wuxuu gabay inuu ka warhayo uu ogaado xaaladda uu ku nool yahay wiilkiisa yar sidaas darteedna wuxuu si kama ah u gudan waayay waajibaadkii waalidnimo ee ka saaraa ilmihiisa yar haddaba kadib eedeysanayaasha waxaa loo dhowray xuquuqdii qareennimo waxaana maxkamaddu guda gashay galkan qareenkooda oo jooga kadib markii loo akhriyay xaashida eedda labadaas waxay sheegeen in aysan qabin fal dambiyeedkan kadib maxkamaddu waxay u diiwaan gelisay dambi la'aan bay u diiwaan gelisay sida ku cad qodobka 133 habka xeerka ciqaabta Itoobiya waxayna maxkamaddu ku amartay xeeraarintu inay soo dhaweysato cadeymaheeda sida uu dhigayo qodobka 139 habka xeerka ciqaabta Itoobiya kadib xeeraarintu waxay soo dhaweysteen 3 makhraati oo kala ah Ubax Cabdi Xasan da'deedu 35 jir laba Cabdillaahi Axmed Ducaale da'diisu 70 jir degan xaafadda lixaad shaqo wada dhaqmeed 3 Axmed Sheekh Cabdinuur da'diisu waa 37 jir degan xaafadda lixaad kadib markii la dhaariyay maragadaasi waxay maxkamaddu dhageysatay 15 bishii 7aad 2009 waxayna fureen sidan maraga koowaad oo ah hooyada ilmaha yar waxay sheegtay inay qurbaha ku nooshahay kadibna inay maqashay in wiilkeedii yaraa uu dayacan yahay ay una timid isaga dartiisa ay u aragto xaaladda uu ku nool yahay kadib markii ay aan wiilkeygii aan damacayna booqdana waxaa ii diiday labada eedeysana inaan arko kadib saasaan ugu dacwooday hay'adaha cadaaladda kadib markii la itusay wiilkii yaraa waan qaracmay markii aan arkay xaaladda duruufeed uu ku nool yahay sida uu u nool yahay iyo waxbarasho la'aantiisa markaan dalka imid aabbaha inuu ituso ilmaha ayaan ka codsaday wuu ii diiday saasaan ugu dacwooday hay'adaha cadaaladdu markii ay tuseen ilmihiina waan qaracmay ilmihana waxaana ogaaday oo dadkii dariska ii sheegeen in jirdil lagu sameeyo in jikada la seexiyo in biyaha lagu dhaansado in ilmahaas waxbarasho aan la geynin dhibaatadiina way ka muuqataa kadib maraga labaadna wuxuu maxkamadda u sheegay in wiilka yar ay guriga uu ku nool yahay uu daris la yahay indhihiisana uu ku arkay isagii oo la dilayo isagii oo biyaha lagu dhaaminayo isagoo jikada la seexinayo isaga oo maskaxda laga gumaysanayo maskaxda laga dilayo oo lagu adoonsanayo shaqo uunan maartay uuna awood u lahayn maraga saddexaad isaguna wuxuu sheegay inuu daris la yahay xaafadda uu ku nool yahay ilmaha yar isaguna wuxuu sheegay
jirdilkaas iyo xadgudubkaas uu maraga labaad uu sheegay. haddaba intaa kadib markay maxkamaddu dhegaysatay maragyadii xeerlaalinta waxay go'aamisay in ay markhaatiyaasi ka gudbi karaan qodobka 141 waxayna ku amartay eedeysanayaasha in ay soo dhoweystaan haddii ay haystaan maragooda difaac. kadib qareenka eedeysanayaashu waxa uu maxkamadda u sheegay in aynan haysanin wax marag difaaca ama cadeymo difaaca oo ka baxsan qaalka eedeysanayaasha, wuxuuna maxkamadda ka codsaday sida uu dhigayo qodobka 142 habka xeerka ciqaabta Itoobiya in maragyada loo dhageysto istifaacooda oo iyagu istifaacayaan afkooda iyagu qaalkooda isku difaacayaan. maxkamadduna way ka ogolaatay. kadib eedeysanada koobaad waxay sheegtay ilmahan yar faldambiyeedkaas iyo waxyaalaha la sheegayo sibuu wax uga jiraa. waxaana ii geeyey hinaase aan ku hinaasanaa hooyadii oo la ii sheegay inay aabbihii isku noqonayaan. waxaa kale oo ii geeyey isagoo caruurta u weyn oo aan u dirsanayay qooshka inuu ii garaaco maadaama caruurtayda kale ay yaryar yihiin shaqaalana aana haysanin inuu qooshka ii garaaco si aan reerku ugu baahanin cid kale oo shaqaale ah. arrintaasna waa arrin aan ku khaldanaa, haddana waan iska saxay. waxaan maxkamadda ka codsanayaa in arrintaas saas la igu tixgeliyo. eedeysanaha labaad wuxuu maxkamadda u sheegay in uunan ogeyn jirdilkaas. kabacdi markii aan ogaadana waxaanu ku kala tagnay xaaskaygii oo aanu halkaas maxaan ku idhahday aan hawshii anigu aan waajibaadkayga ku gutay. haddaba maxkamaddu sida ku cad qodobka 143 si ay go'aan cadaalad uga soo saarto waxay amar ku bixisay in wiilkii yaraa la soo dhaweeyo oo ay maxkamaddu wax weydiiso, waana la soo dhaweeyey. kadib maxkamaddu iyadii oo raacaysa sharciga u yaala xeerka caruurta ayay si gaar ah u wareysatay meel ka baxsan booliska iyo dadka ka baxsan maxkamaddu si gaar ah caruurta loogu talagalay iyo u soo wareysatay. wuxuuna u xaqiijiyey waxyaalaha lagu soo eedeeyay labada eedeysane ee korinaya gacanta ku hayay dhibaatada u geysteen ayay maxkamadda u xaqiijiyey. kadib maxkamaddu markay dhageysatay cadeymaha labada dhinac isla markaasna ay aragtay qiraalka eedeysanayaashu ay qirteen kolkii dambe soo jeedintii dambe ay ku qirteen in ay faldambiyeedka u geysteen, waxay maxkamaddu go'aamisay in ay labada eedeysane dambiilayaal yihiin kuna xadgudbeen sharciga qodobkiisa 659 xeerka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ee soo baxay 2005. kadib maxkamaddu markii ay dambiilnimadooda ku dhawaaqday waxay ku amartay xeeraalyuhu in uu soo jeediyo fikirkiisa ku saabsan ku wajahan ciqaabta. kadib marka koowaad wuuna soo jeediyey, wuxuuna xeeraalyuhu yidhi labada dembiile dembiga ay galeen waa dembi weyn oo xadgudub ku ah sharciga iyo ilmaha yar ee dembiga ka galeen. waxayna sameeyeen sharci jabin, waxayna ku xadgudbeen ilmaha yar xuquuqdiisii, waxbarashadiisii iyo koritaankiisii. ilmihii yaraa iminka si uu uga qabsado bulshadaba ma karayo. saas ogeed maxkamadda waxaanu ka codsanaynaa in naloo culaysiiyo dembigooda, nalagu ciqaabo qodobkaanu ku soo eedeynay waxa uu dhigayo. kadib qareenka labada eedeysanaa wuxuu soo jeediyey maadaama ay gacan siiyeen cadaaladii oo ay qirteen faldambiyeedkii, maadaama ay qoomameeyeen, maadaama ay awlaad kale leeyihiin oo haddii la xidho awlaadda noloshoodu ay khatar gelayso oo iyaga laftigooda u baahan in xuquuqdooda la ilaaliyo, maadaama ay dad waalid ay yihiin, maadaama ilmahoodii ay adeegsanayeen uu yahay oo iyagu waxaan u geystay adeegsa ilmahooda adeegsanayeen uu yahay. waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in xukunka loo fudaydiyo labada dembiile ama lagu xukumo ganaax lacageed oo fudud. saas isaguna soo jeediyey. sidoo kale xeerlaalyuhu wuxuu maxkamadda ka codsaday in wiilka yar maadaama ay ku xadgudbeen labadan dembiile in lagu wareejiyo hooyadiis isagoo oo la eegayo xuquuqdiisa iyo dantiisa isagoo la eegayo. kadib qareenka labada dembiilena wuxuu soo jeediyey maadaama gabadhan wiilka hooyadiisa uu nin kala qabo oo dibadda joogaa
isla markaasna ninkaasna uu yahay ninaan dhaqankiisu fiicnayn iyo akhlaaqdiisu ay dhicna karto ilmahaasi inuu ku halaabo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba inuu ka halaabo waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in laga daayo ilmahaas annagana loo daayo maadaama annagu aanu soo korsannay qoomanina wixii hore aan u geysanayna aanan kula noqonaynin kadib arrintaas si loo xaqiijiyo maxkamaddu xaqiijiso waxay maxkamaddu amartay oo warqad u dirtay xafiiska qurbo joogta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay ninkaas gabadha qaba wiilka hooyadii uga keenaan warbixin ku saabsan akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa kadib xafiiska qurbo joogtu isagoo la kaashanaya jaaliyadda dalka jaaliyadda deegaanka ee waddanka degan ku nool yahay Ingiriiska ayay waxay ka keeneen warqad bay ka soo qoreen ay kaga sheekeynayaan akhlaaqdiisa warbixintiisa ay ku sheegayaan inuu ninkaas yahay nin mas'uul noqon karaya oo lagu kalsoon yahay oo xilkas ah nin dhaqankiisa iyo dabeecadiisuba ay wanaagsan tahay kadib maxkamaddu waxay qaadatay warbixintaas xafiiska qurbo joogtu uu soo bixiyay uu ka soo bixiyay ninkaas kadib maxkamaddu markii ay dhageysatay cadeymaha dhinacyada isla markaasna ay aragtay sharciga kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilaha koobaad Faadumo Saleebaan Cabdi xarig fudud oo dhan 2 sano iyo 6 bilood oo xarig ah oo looga soo bilaabayo maalinkii gacanta lagu dhigay hase ahaatee maxkamaddu waxay xukuntay inay 1 bil ku jirto xabsiga jeelka ku jirto ka bacdina maadaama ay caruur kale ay jiraan oo caruurtaas in la daryeelo ay muhiim ay tahay waxay maxkamaddu go'aamisay inta dambe in loogu bedelo lacag ganaax oo dhan 7,000 oo bir markii ay ku jirto weeyaan hal bil markii xabsiga ku jirto ay dhadhamiso ciqaabtaas dambiilaha labaadna maxkamaddu waxay ku xukuntay sanad iyo 8 bilood oo xadhiga ama 4,000 oo ganaax oo lacag waxaa kaloo ay maxkamaddu go'aamisay ay xukuntay sida uu dhigayo maxkamaddu iyadoo raacaysa qodobka 569 xeerka dambiyada Itoobiya ayay go'aankaas gaadhay kadib maxkamaddu iyadoo eegaysa qodobka 36 xarafkiisa saddexaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo xeerka caalamiga ee United Nationska oo ah daryeelka xuquuqda carruurta qodobkiisa saddexaad xeerkaas oo soo baxay 1980 xuquuqda carruurta daryeelka xuquuqda carruurta ee caalamiga Afrika qodobkiisa afraad iyadoo oo eegaysa qodobka 36 ee dastuurka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayay maxkamaddu waxay go'aamisay iyadoo oo eegaysa danta ilmaha yar in ilmaha yar Cabdifataax mooga warsame laga bilaabo maanta in hooyadii lagu wareejiyo ayay maxkamaddu go'aamisay amar loo qoro warqad xukun fulin ah xabsiga dhexe ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya cidii aan ku qancin go'aankan waxa uu furan racfaan lagu wareejiyo ilmaha yar hooyadiis galkan waa la xidhay waxaana lagu celiyay xusuus dhowrka maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii 10aad 2009 يا سلام في المال في عن حبيبي حاجة سفر دي السوق تودا دابا حبيبي نكون راجع انت شقتي تكون مودي مال شقتي ما حتى نسلا تسيك على حتى ما تنسلا عقبال ما قلنا انت كنتي والله قرعنا نكون دياري ما ندرك ها وان قرعه waxaan xabiib ku raagay suuqa waan ka imiday maanta hooyadii baan arkay hooyadii hay hadaan arkayna jidkaan iskaga soo warbaxnaa hay arrin bayna ila timid arrin maxay tahay hooyadaaba intaad aragtay waliba arrin kula timid dee waxba la hubsaday arrinkiinu fiican yahay wuxuu urmay sida maxad la boodaysaa waxba ma hubsanayne hooyada intaad aragtay waliba arrin kula timid arrin bay ila timid naleeda dee wuxuu arrinku arrin fiican ma dhageysatay darta hooyada arrin dhageyso hooyada arrin fiican ba kama yimaado waa hada anaga nolol ballantiina waad ka baxday xabiib sidana kuma moodin
ballantii inoo taalayo hooyada saan aragtay bay noo gashay arbad leedahay arrin bay warde hubsiima hal baa la siistaa ma la iska boodaaw ana saasay noo kala dhamaatay dibna kugu soo noqon warbar waa wax fiican ah dhageyso waar Axmed tii soo martay buu ogaayo wuxuu isleeyahay maantana hadalkii hooyadeed bay ku soo maqashay hooyada inaan jidka kaga dhaqaaqay oo kaga soo dhaqaaqay miyuu og yahayba waxaan sameeyaa hadalkiina igama sugin waxa soo watana imaba ogaba waxaan sameeyaa ma garanayo wallahi bal aabahay yimaad sorry the subscriber's phone you've dialed is switched off ayga mu bixin ba goor muddo saday telefoonka kaas bal aabahay karaa halo aba seetaay وافيعنا أبي ورن وافيعنا أبي مريني waxaan rabay abayna diid timaado arrin baa jire أبو وحبا سوكر رياض wala bas degdeg guriga igu kaale هيا أبو نمن إن شاء الله هيا بمع بلا soo daayin soo dhaqso